kadib markii dhawaan maama Faadumo warsamo faahiye ay ka codsatay dadka muxsiniinta ah laba wiil ay gacanta ku hayso isla markaana ah labadaasi kuwa madaxa ka jiran ayaa hadaba waxa maanta deeq gaarsiiyay ololaha Awdal Unity isla markaana deeqdani ay ahayd tu iskugu jirta bustayaal furaashe iyo waliba koodhar ay ka gashtaan dhaxanta labadaasi wiil ee madaxa ka jiran ayaa ka timid gabadh muxsinada oo ku dhaqan dalka dibadiisa ayaa waxa halkaasi ka hadashay maama Faadumo warsamo faahiye isla markaana ka mahad celisay deeqdani la soo gaarsiiyay una ducaysay ololaha Awdal Unity iyo gabadhii deeqdani ku soo caawisay maama Faadumo warsamo faahiye laba kood laba furaash iyo laba bustayaal waan niga gudoomin qofka boqol صح aad baan niga gudoomin kuwa soo diran Allah ka jisaysiyo bal ka waran maxay wax ka tiri doontaa alaabtani de wiilashaas aad bay ugu baahnaayeen maaragtay dhaxanta wad arkaysaa furaashadooda wad arkaysaa aad bay ugu baahan yihiin marka waan aad baan uga gudoomay inagana waan nid duceynaya inaga iyo iyagaba hotel maxamed ka dhamaantiin maxaad fariin bulshada u diraysaa bulshada waxaan u dirayaa hadii ay bakatiis ay noqoto hadii alla ka dhigo waxaan u dirayaa inay sida ay si ka badan iyo soo caawiyaan dalka iyo dibadaba kuwa dalka jooga kama dheregsan ka dibadda joogana kama dheregsan mid walbana waxaan u baaqayaa inay si khayr leh iyagu soo naxariistaan ilaahay baa naxariistan iyaguna ay soo caawiyaan hadda intii ugu muhiimsanay wixii u muhiimsan waad ii keenteen waxa ku xiga nafaqadooda aqalka ay galaan waad arkaysaan de kolba sidii la iigu heli karo in la iigu keeno way iigu soo taraan waxa weeyaan imika waa waqti shaqadu way kala joogsatay imika inta badan ma helaba shaqo ma garanaysaa dad badan baa shaqadaada inta badan aan la socon waxaad ka shaqeysay bal u yara bayaan shaqadaada waxaan ka shaqeeyaa kooriga aqaladan dhisaa aroor walba waan ka lahaa nimanka halkaas aan kaga taga afar taabeenimo wax u dubaa markaan u dubo waan ka taga ilmaha yar baa siiyay ilaahay umada wuxuu bixiyo marka waa maraan soo helo waa maraan soo waay imika shaqadii aad bay u joogsato sidii hore ma aha marka marnaba aan dalkayga iyo dalka iyo dadka toona dibadda toona kama dhereegsani marka tacaabo waxaan leeyahay insha Allah inuu ilaahay iigu soo dhiibo wax khayr leh haweeneyda gobolka Awdal ka soo jeeda deeqdaas ugu soo digtayna maxaad iyada ugu ducaynaysaa caafimaad iyo cimri dheer iyo ilaahay ubadkeega inuu ka siiyo naxariiso jannada Allah siiyo geestiisa isaguna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ololaha Awdal Unity Nuux Kadiye waa hagaag daawadayaal deeqda aanu gaarsiinay maama Faadumo warsamo faahiye ayaa waxa kamida maanta waxaan ugu imanay hooyo Faadumo warsamo faahiye inaanu gaarsiino deeq ka timiday mid kamida qurba jooga ku dhaqan dalka dibadiisa oo haweenaya ilaahay ka abaal mariye waxay noo soo dhigtay deeq lacageed oo dhan $100 Mareykanka kaasoo aan ugu iibinay agab kala duwan oo aanu soo siinay Faadumo warsamo faahiye deeq ay maandhawada ay doonaysay in ay bulshada Soomaaliyeed ay yaani fariin ay u dirtay oo ku saabsanaa bal in loo helo inamadani bustayaal koodhar iyo sidoo kale furaashyo ay ku seexdaan laba furaash laba bustayaal iyo laba koodh oo aan ugu talagalnay in labadaasi wiil ee xagga dhimarka ka xanuunsanaya ay yaani ama ay huwadaan bustaha koodhashana ay xidhaan sariirahana ay ku seexdaan furaashadana ay ku seexdaan maadaama furaashadii hore ay noqdeen kuwo gabi ahaanba baaba'ay oo yaani dhulka ku dhigay oo dhamaaday marka daawadayaal deeqdiini waanu gaarsiinay Faadumo warsamo faahiye jazakallahu khayran dhankiisa isaguna waxa halkaasi ka hadlay Xuseen Cateeye Jaamac Xuseen Gaafane run ahaantii waxaan qof kasta ugu baaqaynaa in maanta booramo oo dhaxantii ugu weynaadahay ka dhacayso kuma filna koorashan yar iyo bustayaashan iyo waxaan soo gaarsiinay mudnaanta ugu weyn waxa mudan gurigani ay degan yihiin oo isagoo ahayn mid maxaadaanay wax saas dhaxanta xajinaya aan ahayn ayaa mudnaanta ugu weyn mudan qof kasta oo jir naxya ku yaalo ama u damqanaya walaalahoodaasi ka soo qaad adigoo maanta booskooda taagan waxaan kuugu baaqaynaa si naxariis ku jirto xushmad ku jirto in fadlan nagala qayb qaadataan dhisitaanka aan ku tala jirno inaan u dhisno guri jingada ama maqsin dhagaxa aan u dhisno oo ku tala jirno oo hoygaasi aan dhaxanta xajinaynin hoy dhaama baan doonaynaa aan ku tala jirnaa inaan u dhisno idinkaana wax nala qaban kara fadlan nala soo caawiya way Faadumo warsamo faahiye iyo labada wiil madaxa ka xanuunsanaya
isku soo wada duub oo labadani wiil ayaa iyagoo ah kuwa aan weli haysan dayactir ku filan isla markaana guriga ay ku jiraan uu yahay kan idin muuqda. haddaba walaalka muxsinka ah ee jecel inuu ka qayb qaato khayrka waxa lagu wargelinayaa inuu soo caawiyo walaalahani Boorama ku dhibaataysan. وجامع ضد مقالة بورما.